ninka Soomaaliga ee baarqabka geeliisa kaga soo qaatay diyaaradda waddanka Pakistan oo markan maayir mooga diyaaraddu soo qaatay. Bashiir waa ninka in ka badan 700 oo geela ku dhaqda Kenya ee baarqabka geeliisana diyaarad kaga soo qaatay dalka Pakistan. maalqabeenkan Soomaaliga ee ku nool Kenya ayaa asal ahaan ka soo jeeday magaalada Hargeysa. Iminka socdaalkiisan u dambeeyay iminkana waxa uu diyaarad uga soo qaatay waddanka Kenya si uu la kulmo maayir moogaha loo bogay uguna bogaadiyo dadaalka nafurka ee uu sare ugu qaaday bilicdii caasimadda muddadii sanadka ahayd ee uu xilka hayay. dadka horumarka Hargeysa jecel ayaa garab istaag buuxa u muujinaya maayirka caasimadda mudane Cabdikariin Axmed Mooge. waa kan wariye Sayid iyo Bashiir waraysiga xiisaha badnaa ee dhexmaray. bismillaahi raxmaani raxiim. kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal, waa barnaamijkeennii La Hadal Horyaal. barnaamijka La Hadal Horyaal waxa aanu wax ku weydiinaa ama ku wareysanaa dadka aanu isleenahay waa mudanta iyo haldoorka bulshada, isla markaana waxa ay ka warrami karaan dhacdooyin iyo xogo iyo macluumaad iyo taariikho ummaddu wax ka faa'iideyso. toddobaadkan waxaa marti inoogu ah oday Bashiir Cali Diiriye. Bashiir waa oday reer Somaliland oo ku nool dalka Kenya, kana mid ah odayaasha waxgaradka iyo madaxda jaaliyadda reer Somaliland ee dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Bashiir, ku soo dhawow barnaamijka La Hadal Horyaal TV. wadhowahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bashiir, sida aan ka warqabo waxaa tahay oday reer Kenya ah, jaaliyadda reer Somaliland ee Kenya ka tirsan tahay. intee joogtay iminka dalka? 2 cashaan joogaa iminka. ujeeddada aad u timi iyo safarkaagu waxa uu ku saabsanaa haddaad nala wadaagto muxuu yahay baad odhanaysaa? ujeeddadaydu halkan u imid waxa weeyaan aan u imid oo number 1 oo Nairobi uga soo safray inaan ninka la yidhaaho Cabdikariin Axmed Mooge inaan idhaaho Mooge waad mudan tahay. waxaan u imid Cabdikariin inaan shahaado sharaf siiyo anigoo xubin fircoonka jaaliyadda Somaliland, asagoo bulshada reer Somaliland Hargeysa ka soo dhex baxay, maayaradii waddanka loo doortay ka soo dhex baxay, wax qabad muujiyey. ninka haldoorka ah haddaan loo sacabin khudbadda way ka halowdaa. Cabdikariin waxaan ugu imid inaan idhaaho waad mahadsan tahay, hore u soco. Cabdikariin baan u imid, Cabdikariin baan rabaa insha Allah inaan qaabilo. inkastoon ka daahay oday iska xoolo dhaqataan nahay oo ragga dadka geel baan dhaqdaa, geel dhaqataan nahay. marka waxoogaa waxaa laga yaabaa waddadii magaalada loo maray inay iga yara halowdae, laakiin waxaan u imid inaan muddo gaaban joogo. Cabdikariinna aan u mahad celiyo, aan idhaaho Mooge waad mahadsantahay. Bashiiro, ma intaasoo keliya aad u timi inaad Cabdikariin u mahad celiso oo shahaado guddoonsiiso, mise hawlo kalena waad u socotay? intaa wax yar ma aha. haddaad wax yar u haysatid intaa wax yar ma aha. ninka ummaddiisa ka soo dhex baxay Hargeysa, haddaad iminka xaragoonaysid ood si wanaagsan u qurux badan tahay ood u soo fayrato oo u soo cadarsato shaar wasaq la xiran tahay ma qurux badnid. Hargeysa waxaan u imid oon Hargeysa ahayn, dhalaalayso, ifayso, xaragadeeda soo baxday. ninka ka dhigay waa sidaa. ma iman muddo, laakiin warka ayaan hayey, sidii aan ku maqlayna waa nagu imid. marka in la yidhaaho Mooge waad mudan tahay, wax weyn baa ku jira, wax weyn baa ku jira. Bashiiro, Cabdikariin hawsha uu qabtay inkastoo ay muddo koobanba tahay oo xadidan tahay oo weli wax qabad intaa ka badan laga sugayo, run ahaantii dee way muuqataa, ummadduna way wada arkaysaa. marka adiga waxaan gaarka ah ee kugu jira ee kugu kalifay inaad Nairobi iyo Kenya ka soo safarto, tigir soo goosato, qarash soo bixiso si aad ninkaa u tiraahdo mahadsanid, haddaad noo faahfaahiso oo sidan si ka ballaaran ugu sheegto maxay tahay? anigu horta sidaad u aragtid oday baan nahay. adduunyadana odayaashu khibrad iyo aqli iyo wax walba waa laga helaa, waayo aragnimo. dadka iminka waddanka u badan ama dadka u badan waa dadka 30 jirka ah. 30 sanana waa taqaanaa, waa inta Hargeysa iminka lagu soo noqday. wax badanoo nin ogeyn baan ogahay anigu. xiise badanoo aanan qabin ayaanan qabaa. marka waxaan u haystaa wax weyn. arrintaa iyadaa wax weyn baan u arkaa. waxay wax u taraysaa meeyarada kale ee gobollada kale. maxay u qaban waayeen intuu Mooge qabtay? soo la mid maaha. marka insha Allahu tacaala, inkastoon waddanka muddo aanan iman oon ka raagay, laakiin arrinta aan iminka u socday ee ugu weyn waa Mooge waad mahadsan tahay iyo waad mudan tahay.
dad badan waxay socon karaan malaa Bashiir waxba u qarsoon oo hawlo iyo arrimo kale iyo waxbuu ka doonayaa maayarka arrimahaas ma jiraan wallaahi isma naqaano alxamdulilah aabihiin in la yaqaan buu ahaa laakiin asaga isma naqaan runtii anigu hargeysa kumaan dhalan Kenyaan ku dhashay hargeysa xiisaan u qabay markii ugu horreysay nimid 91 baa ahayd waan ka naxay anigoo murugaysan baan ka tegey marka anoo faraxsan hargeysa inaan arko wax weyn bay ila tahay anoo awowgay baa ku dhashay abbay hataa kuma dhalan hargeysa marka xiisaan u qabaa gaara xiisa gaara baan u qabaa muuse waxaan wadaagnaa Soomaalilaannimo nin xigta hoose oo maanta maartay qabyaalad buu ugu yimid la leeyahay miihi mooge insha Allah waa khaldamay mooge xigta hoose oo maanta qabyaalad buu ugu socdaa la leeyahay miihi alxamdulilah hargeysa ayaa naga dhaxayso malaha awowgii anigu dibadahaasaan ku dhashay marka insha Allah xiisa gaara baan hargeysa u qabaa ninka hargeysa wuxuu qabtaana xiisa gaara baan u qabaa maxaad ku kordhin kartaa ama aad leedahay tala ku siisid oo aad u sidaay marka shahaadada laga tago aragtida ka hor si aan wax ugu sheego ilaa shalay ilaa darad magaaladan dhex mariyay waxyaabaha aan arkay inaan u sheego oo wax qabad u baahan waanan u sheegi doonaa magaalada waad soo saamisay intaadan isaga u tegin magaalada intaan isaga u tegin si aan u iraaho halka way ka dhiman tahay ninkan alxamdulilah intuu hadda hayay dee khalad lama saari karo laakiin wixii asaga unan arkin oon arkay inaan u sheego waa muhiim oo waxyaabahan u imi waxaanan u arkaa nin qalbi furan oo indho furan oo tala qaadanaya inuu yahay intaa waa intaan ugu imid inta aan meediyaha ka daawanayay ama intaan arkayay waa hagaag markaad isu barbar dhigto ama isu compare garaysaa hargeysadii kuugu dambeysay 91 iyo hargeysada maanta maxaa kuu soo baxay oo farqiya 91 kadib waan imid ganacsi baan ka sameeyey wax badan baan isku dayey waan iman jiray sanan aan iman way yartahay imanka ayaan ka yaraago malaha 2 sano ka maqanahay maayarro kalaa joogay madax kalaa joogtay yacni hargeysa siday maanta tahay waa si laga maqsuudo oo lala yaabo si lala maqsuudo oo laga yaabo ayay tahay waa xaraga isla eg waa magaaladii oo nadiifa magaaladii oo dhisba ku socdo magaaladii oo faraxsan mooge maanta nin aan raalli ka hayn oo reer hargeysa ma jiro nin qabiilnimo u riixaya ma jiro waa nin dadka la walaala waxaan u arkaa in mustaqbal layn yahay haddaanu dee la bedelin bini'aadamku waa la bedelaa balaayo kale hoosta iskaga jirtee haddaan la bedelin waxaan u arkaa in mustaqbal leh marka Bashiir oo aynu taa ka nimaadno Kenya degan tahay waxaad ii sheegtay inaad geel dhaqato reer miyi tahay halkaad ku dhaqataa geela waxaan ku dhaqdaa Kenya waxaan ahay ninka ugu geel badan Kenya filaya haddaan Kenya ugu geel badanahay Somaliland inaan ugu geel badanahay marka geel wanaagsan baan leeyahay oo caalamka laga yaqaano YouTube-yada inaad ku aragtay ma aqaan oo aan u qooriyo oo maanta maartay grade baan leeyahay alxamdulilah tire iyo tayaba leh halku ku dhaqaya geelaaga halku jooga geelaga iminka gobolka Coast buu joogaa Malindi meesha la yiraahdo Malindi buu joogaa waa imisa halaad geelaaga adigu geel waxaan ku celceliyaa 700 800 waayo intaa ka badan lama hayn karo dhul baanan loo hayn 800 oo halaad oo geel baad leedahay oo Kenya ku joogta oo 8 horta iminka 7 uu gaara mararka qaar dee waan dhimaa hortaan ka iibiyaa hasha weyn baan iibiyaa qaalmaha mararka qaar iibiyaa waayo geel 8 ama 7 imisa ka dhali karta sanadkii 400 baa ka dhalaysa marka sanadkii markii 400 ku korodho waa inaad 400 ka saartaa haddii kale dee dhul uma haysid annaga dhulka iyagu waa range beero weeyaan la kiraysto range wey marka dee range intaa ka badan ma qaadi karayo Bashiir oo geela intaa tirada leeg Soomaalida waa taqaanaayo dee dhibkiisa iyo hawshiisa iyo ninka 100 halaad leh baa dee la yiraahdaa ayaa ninkaas waa nin kadin geela leh marka 700 halaad leedahay maxaa lagu oranayaa adiga wallahi geelu technical buu u baahan yahay geelaygu for example wuu kala habaysan yahay geelayga iminka inta riman waa dhinac geela kale kuma milmaan geela daada yarta oon qaangaarin waa geela kale kuma milmo awrta geela kale kuma milanto geela geelweynka geel kale kuma milanto markaad habkaa u kala habayso geeluna geeliga hal mar buu dhalaa hal marna wuu rimaa sanadkii bishii 9aad baan ritiga ku sii daayaa insha allahu tacaala marka wuxuu dhalis bilaabaa bisha 11aad
ilaa bisha koobaad ee sanadka ayuu dhalaa marka waa ilmo isla eg oo isku si loo hayn karayo hadhowna isku si aad u dhaqaaleyn kartid marka ma dhib badno markaa sidaa u egtid waxay ku kala habaysan yihiin bashiirow runtii sheeko yaab leh baad ka sheekaysay 700 oo halaad oo geela ayaad Kenya ku leedahay rag boqol halaad iyo waxaa leba Soomaalida faankeeda oo gabaya tiriya oo heesa oo boqolka halaad ku faana geelaaga maxaad ugu faani weyday loo maqli waay cid ku faanaysa ka hadlaysa horta geela ku faantay caado u lahayd Soomaalidu horta geela markii boqolka lagu faanayay wuxuu ahaa guri 10 dabaq buu ahaa ama 200 ayuu ahaa ninka ugu hanti badan buu ahaa magaalada laakiin maanta ma aha geela heerkii isaga aha ma joogo oo iminka 700 halaad markaad qaaliyay sidoo min kun ku dhufatid waa 700 muxuu ahaa marka magacii buu ka joogayay qiimihii kama joogo valuationkii kama joogo oo iminka dee wax ka qiimo badan baan leeyahay daara 7 dabaq iyo 8 dabaq baan Nairobi ku leeyahay marka geeli ma muuqanayo daarti baa muuqanaysa iminka dhibka halkaas uu ka yimi waxa igu maqala awrka baarqab ama ratiga geela kuugu jira dibadda ka keentay arintaas ma jirtaa way jirtaa Pakistan baan ka keenay from Karachi to Nairobi haye aad soo saartay anaga bridge-ka dawladda naga caawisa markaad adigu codsato oo dawladdii shuruudihii aad soo dhamaysid baahidaada la arko dawladda kuga caawinayso marka kharashka fact dawladda naga bixisay 4 riti bay ahaayeen diyaarad illusion baa lagu keenay diyaarad baad soo saartay diyaarad baa la soo saaray association baanu leenahay marka associationkii de waanu niman cadaan baa jira oo faamam la geel leh marka waanu qaybsanay aniga nimanka cadaanka ah marka sidaasaan riti ku qaatay awrka rati ee geelaaga kuugu jira ee caruurta nirgaha kugu dhala waxaad ka keentay Pakistan oo diyaarad baad ku soo qaaday Nairobi baad keentay waa sidaa laakiin geela inta 700 eg horta hal riti kuma filla marka awr kala jirta oo Kismaayo meesha la yiraahdo aan ka keenay baa jirta maxaad ku dooratay kanaad Pakistan ka keentay Pakistanku wuxuu leeyahay inta geela Soomaalida ay ku amaanto wuu ugu qurux badan yahay wuu ugu caano badan yahay wuu ugu adkaysi badan yahay marka iminka adduunka geela waxa ugu sareeya Pakistan laakiin geelal kale oo qiimo leh baa jirta Kismaayo riti aan ka keenay ritiga Pakistan kama liito aragti ahaan riti aan ka keenay Buuni iyo Butey meesha la yiraahdo dhulka ajuuraanka saasoo kale marka laakiin geela Pakistanku inta wuxuu dheeriyaa caano imisa nin baa raaca geelaaga oo ka shaqeeyo ilaaliya geela 50 qof baa ka shaqeeya 50 qof baa ka shaqeeya oo aad mushaar ku siisaa geela inaad xaggan u soo wareejiso ama halkan geel ka samayso qorshe ma kugu jirtaa way igu jirtaa laakiin halkan dhibka jira waxa weeyaan geeli kayma ma laha oo dhulkii waan arkay dhankan bari iyo galbeedba waan u baxay dhul maanta geel la keeno ma laha waxaan markaa ku tala jiraa inaan dhul iibsado calafkii anigu aan beero marka aan keeno geeli sida aan maartay ku dhaqaaleeyo laakiin way ii suurto geli weyday sida iminka Kenya oo kale inaan meel barobar khaas ah inaan keeno oo geeli uu maartay ku filan ma lama helayo marka waxay igu kaliftay inaan dhul iibsado ama dhul dawladda weydiisto haddii uu jiro marka aan calaf beero marka hore markaan cuntadii u beero geeli marka inaan keeno geeli garanay maxaa kala ka shaqeysaa ganacsiyada kale maxaa walahi ganacsiyo kale waan leeyahay real estate waan ka shaqeeyaa cargo companies waan leenahay ganacsiyo kale way jiraan maxaa halkan aad uga bilaabi weyday mashaariic waaweyn oo kuwa la mid ah waan ka bilaabay wadanka markii uu culayska jiray baan ka bilaabay waan ku feel garoobay dadkii ugu horeeyay maalgashi ku sameeyay baan ka mid ahaa laakiin waan ku feel garoobay iminkana kama niyad jabin insha Allah Bashir wax kale oo aad doonayso oo fariin ah oo bulshada reer Soomaaliland la wadaagayso iyo maayir mooge iyo madaxda kale ee dalka iyo madaxweynaha ma jirtaa iminka inta noogu daraysa way jirtaa in fact Soomaaliland waan ka xumahay iska qabsiga iyo maartay dhibkii ay soo mareen inay ilaabaan anigu waxaan ka mid ahaa 47 nin ee jasiiro lagu laayay
dadkii la doonayay in lagu dara ayaan ka mid ahaa galabtii baan ka dhoofay magaalada muqdisho habeenkii gurigeyga waa la galay waa liga waayey marka dadku inay xasuus ku shaqeeyaan baa wanaagsan dadkii waxaa soo maray inay maanta kursi isku qaqabsadaan 5 sano ah boqortooyo aan ahayn aad bay u khaldantahay baan u haystaa insha allahu tacaala anagu waddanka Kenya waad maqashay hadda doorasha ka dhacday mar walbana way ka dhacdaa qofku wuxuu tirsanay maxkamad buu aadaa idinku laakiin markaad wax isku qabsataan geedkaad aadaysan geedku howla badan yahay howla badan yahay geedku marka masalan laba qolo ay mag dhex marto maxaa noo xeer ahaa baa la yidhaha laakiin dowladnimadu xeer ma laha marka waxaan codsan lahaa ilbaxnimada ha shaqayso waddankana ha loo turo bashir aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasina waxa uu ahaa bashiir cali diiriye oo ah oday reer somalilan oo ka mid ah dadka waxgaradka aqoon-yahanka ganacsatada iyo maalqabeenka ah ee ku dhaqan dalka Kenya xubin firfircoon ka jaaliyada reer Soomaaliland ee Kenya oo dhawaan booqasho ku yimi magaalada Hargeysa si uu mahadnaq u gaarsiiyo maayarka caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isla markaana u guddoonsiyo shahaado sharaf oo u gartay isagoo ku bogaadinaya waxqabadka iyo shaqada wanaagsan ee caasimadda ka qabtay Bashiir aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan rajaynaynaa maayarkana inay fariintaadu gaari doonto iyo bulshada inteeda kaleba aad iyo aad baad u mahadsantahay Bashiir soo dhawaada gamuur fariijo waa dhowraya alaab rasmi doonsan gabadhana tiri meel kale tagi maayo aan gamuur hayn wadar soo dhawaada ina tan ku daraya eegta alaabta ilaa gudaha gala ina taasay shaqeynaysa soo dhawaada macmiil ku soo dhawaada gamuur furniture ma qaybta hurdadan horeysinaa mise qaybta fadhiyada fadhiyo casriga cusbaa waa armaajadii taas intaasoo khaanadood bay ay leedahay way ka kooban tahay kan laftarkiisu waxa weeyaan waa kabarkii alaabta lagu guranayay halkana alaabaha yar baad ku guranaysaa annaga tanayba noogu dhanta tu kala ka sii shidan waa tantii kalena soo dhawaada waa inta hore qobaay ya salaam tanaynu qaadanayna hayo muddo deemoy maxaa marba tiyaan taagan hanu qaadanayna waxay meesha indhiyow halka ba iska dayna halkeenna wallahi ka ishan macruurta isku eegaysa سام هذا الماله تنبال أنا قدونية ميل أن مجالات كو أركي رأي وطلعنا مجتو سو ماها وعصبيين وحنا دي ألعاب ترى ميل كله طلعنا مارك أن جمهور هين ولا فرد ولا أنت وحبي يجي نسكر عسل صرت من كلا مين كتير فرد ولا كذا عن كل ونجي فرد كنا هنجي بيها يجن كهلنا في النادي عندنا لو كرسنا يجن كهلنا حتى وحي لي لاسش الملك دون هذا دون سيرفيس بينه قاعد جايبه أنا كنت أحسنه عمر كان جمهور هو أنا كنيس تواني كنيس ألعب ربنا والله كاشن كهلنا ما شاء الله ألعب توينا قناصي صور هذا والله سرير دليفري بعد قاضية جمهور أب وتفان وأنا اللي حتى ما أدرينا أدبو ما سلت ولا هاي والله فلو ولا ولي مينو كا قسم بريلان عرفت ولا هو أنت حيو في النادي يحن كل شيء قلب إلكتروني ولا تي في النادي وحير عارف أنا صار عناية وهو استبرتني تعال استبرتني بيا لا ده حن كل شيء ورده والله جمهور واو